beelaha dhexe ama isaaq baan la hadlaya haddii Somaliland markii hore idinku aad iska wadateen maanta haddaanu hartinahay waanu soo galnay siyaasadii waxbaanu ku leenahay doorashadii waa galnay haddaad hore isugu diri jirteen ama isu qabsan jirteen maanta ma ogolin intaa in la eego dhibaatada Somaliland kama ogolin haddaanu hartinahayna maanta dalka Somaliland in dhibaato ay ka dhacdo raali kama nihin mana aqbalayno umana dulqaadanayno taana waxaanu furaynaa dhammaan shacabka reer Somaliland meel kasto ay joogaan gudaha dibadba nabadgelyada Somaliland ku soo caaniya nabad maashay waa in la adkeeyaa waa in waxa weeye buuqa iyo qeyrada la joojiyaa salaadiintana waxaan leeyahay xil weyn baa ina saaran waa in aynu dalka nabadgelyadiisa iyo isku xinaantiisa iyo horumarkiisa ka shaqeynaa xabadna kama ogolin dalkan dhibaatana kama ogolin waliba haddaanu hartinahay mar saddexaad baan ku celinayaa maanta waynu isugu soo galnay dalka waxbaynu ku wada leenahay haddaanu horey ka maqlay maanta waxa weeye siyaasadii iyo awoodii iyo dhaqankiiba intaba waa ku joognaa ma aqbalayno idin kana aqbalmayno isaaqo